kulanti waxaan u xiisaa dhamaantii baa khiyaarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo deeqa aadan muuse deeqa afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda maala dad aada u tiro badanna ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda. deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka soomaalida oo dhan meel waliba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexdheliyay. haddaba waxaan leeyahay deeqa kusoo dhawow marka koowaad tv-ga. dalmar walaal waa mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa. deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aada ay u hadal hayaan. bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad usoo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aadka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii. dalmarow walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii aanan ku talagelin si aanan ku talagelin buu u dhacay, si aan lagu talagelin baa loo duubay, si aan lagu talagelinna wuu ku baxay. haddaba markaan usoo noqono markaad eegto haddaba bal reactionkii ka dhashay ama dadku fikir maxaad kaaga soo noqday markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalad u baxay. والله دقود قف بس بقوا حظي dadkeena Soomaaliyeedna waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan. Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay, dadkiisa abuurtay, laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim bir Ilaahay. qofkii turjubaana Ilaahay uma baahna. qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh, tarbiya leh, bini aadamtinimo leh, aqlisan, aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro, laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay. marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo admoodina adduunka loo soo diro leeridiinta dadka ku ciqaaba qofkiina markaa dadka intooda badan dalmarow intii cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya, ma dalka laga leeyahay waa maya, ma Soomaalinimada laga xiga waa maya, ma dhaqan ba laga xiga waa maya. haddaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa. laakiin anigu taawan ka duwanahay subxaanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta 100 tilaabaan dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd. waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahna adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin. deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan ha ahaato ama heesa ka horreeyba ahaato iyagana maxaad ka leedahay? thank you dalmar walaalo. waxaa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama ii hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay. waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyayna waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cududaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin. haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor. horta aniga noloshaydii horta anigu
media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas talmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii 2 indhood ba iska soo xireen baaskoolad buu mudag hal mid baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta wiir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xoog buu baaskoolada u xiray fiidiyowina wuu damiyay ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyay arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hanjabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne kugu garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arka xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rakarooni ku soo saareen heesaha inta badan aan sameeysta kafee yaraantaan soo shubtaa heest aniga laygu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen ana samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriir dhiirigelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay sharciyadan western ka degantay waliba dalalka Scandinavian ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European ka ama Scandinavian ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu hadii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amuurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharci baan ka haystaa Swedish baanahay guriyada waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahamta ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaam baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa ma fahantiin waxa weeyaan taana igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana oo aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa degay markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga maru tagay hanjabaadahayd weligeeyna meelahaas ku arka meelaha lama kulansiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyay waxa la ii dhiman waa cafiyay laakiin
wixii aniga hadda in record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabay meel bay yeelan taas adduunka hadda daa iraada waa cafiixita idiga yeelayso qoladaas male sababta kuwii 2 sano ka hor kuwii haddana waa iska cafiyay wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagayo ama hal caawiyo dhibaato xagga aniga haysatay waa seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badnayd dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arka marka anigu taasaan u jecelayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku khasbanahay inaan u tago inaan hal caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabigeeyo oo haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa markaan saale waxay taanu dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay markaan dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga aad dareemaya kiiskan kiis culus weey laakiin Soomaalida way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay in deeqa in markaad hadda horta waxaan anigu makhraati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan dad badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn ama ba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga makhraati kacaya qodobka aan hadaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay hadii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way korbay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxa gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana commentiyada maxad ka leedahay dalmaro horta ودي قصص ما يورت وعن قصلي horta fleexanti ma moogo waan arkay waxaas ay meelaha ku qorqoreen laakiin taa waxaan kala yahay anigu wadankan waa deganahay runta hadaan ka hadlo barnaamijyo waxaan ka qayb galaa aad u tiro badan waxyaalo badan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayaan ka qayb galaa mar walba marka waxyaalaha aniga horta inta badan aan ka duulo oo aan runtii aan aad ka xoog u saaraa waxay tahay waxaan isticmaalaa hal kelmo oo ah ahow waxa aad tahay qofka aad tahay ahow anu waan jeclaa qofka wax uu yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eegan ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalay ereygaas diyaanado kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisiyo wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniya qofku inuu qof fikradiis ku socdo waa nicbaa runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in anigana operation isku galo ilaah maxamed sabiyaan ku dhaartay nolosheeda inaan jirkayga operation lagu sameyn weligeena aan ku fakiray ilaah baan ka magan galay ma baahanin qodobka ugu dambeeya iyadana aan ka weydiinayo videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay deeqa afro ay wadada u furtay 2019 ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisaba in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن inaan u bilaabana marraba sababta waxaan anigu horta mar walba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldan marrabo waxaan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxaan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii hadii ay qaar soo saaraan maxad kula haday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha israfinayaan saalaydii rifine asha la israfayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo sida kala kaga fiican saana hadda rabaa hadii kadib inaan wax ku soo saaro wallahi
sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoy xageed ku baratay cadaaladda ma say tiri isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usha anay u dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay وقالوا يسلا فيديو ينوع كلا صوصا ما يؤمن يعني ugu dambeyntii waa naxayaaba dararka qodaxsleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahad celinayna waraysigan macaa halkan nagu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad ku soo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dal marow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa oo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira Soomaalidu dhinacay u badan yihiin oo runtii aan aad wax u hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay idinkana hayd soo hanuushee wax hubsada wax walba xogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hoobi maxaa la yiraahdaa xogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xukminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimo isku leenahay hadaanu dadnahay bini aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin Soomaalidu bini aadanimada lumisay war bini aadanimadu waa basic ugu horeeya taadis fahmaysaa intaas ku soo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsantahay